Jirjiraaydo ay maanta qabteen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Boorama ayaa waxay ku sheegeen in hoos u dhac aad u weyn uu ka yimid golaha deegaanka Boorama waxana ay sheegeen in maanta mooshin ay soo dhigi lahaayeen golaha deegaanka in inqilaab military uu ku dhacay xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama iyagoo arrimahaasi arrimo kale iyo maamul xumo golaha deegaanka soo food saartay ku dhaliilayana waxa ay sheegeen شعب الرئة وضل ما يكستوي شوغان تدكي كوزون قوبي كورياشا ديغانكا خاصة مركي عن دورانيك فلنتو مانتا جوبتا شالي طولا ما يكوحكو عن دعونا إيه إساقو وبسيطة سي عكسي وقليي قلت كدعاي إساقا إيه اللبان نادا قار كميدا إن أي اللبان دون إيه الموشين شرعية مركي أو فصحي وزير كارماء قدوه إن أي أودي بان أو أي دقمدي كالسعون ويدي dantii guudna maanta meel alla meel ay jaani ay dhigtay aan laanahay in mooshin sharciye loo dhiibay isagoo ka dagaalamaya in markii dambe baaskoolad la soo baxay uu sheegtay inuu ku yiri xildhibaanka waa ku toogan taasoo cagsi loo geliyo xildhibaankii naftiisii la yiri isaga la baxay waxaan leeyahay warbaahinta qortay hadalkaasi waa mid uu adeegsaday laaluush xaqiiqdeena wax waliba waxay loogaan doonaa runta iyo xaqiiqda magaalada bulshadu way haysaa Soomaaliya waxa tiraahdaa been fakatay ma gaadho de maamulkii runtii wuxuu noqday maamul ana xoog ku joogayo wax weyn oo ahna runtii maamulkuna dad shacabku wax weey dad bay soo doorteen shacabku dad bay soo doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadii ma maayir doortay ku xigeen kuwaasay tahay wax weey in la isla xisaabtamo ana shacabkii waxay leeyihiin waa maxad noo qabateen waar maxaa runa waar beenta marka laga tago maxaa runood haysaan war wixii aad sheegayseen ma waxaad aragtay maayir kelidii intuu meel tagay isku soo sawiro oo wax qabadkii 2014kii ka soo bilaabay kolba bridge iyo kolba wax weey wada kelidii joogsanay war golaha deegaanka ee la soo doortay ma waxa la qabtay kelidii ma u qaban yaani wax weey kelidii taris haddii meesha ay u baahan tahay ama nin kelidii jooga waxaan la wax fiicnaan lahayd maayirka maanta joogi inuu soo gaadho u fiicnaan lahayd maayiradii la soo magacaabay dawladdu soo magacaabayso ma maayir la tashanayo ma maamul talo ogol ma maayir wax weey bulshada shuura iyo wax weey wada tashiye dhageysi kula noqo waa maayirka runtii qolo ka hor keenaya taada saxsan iyo kuma cagta marisa waxaan inahay isaga qorshihiisa